بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرتا قيمها يقيا نجا مدن ميلو بعض تكتوى صاحب كلا عوكيرا مقدشرتي في نوى نجا دوانا سنة سوح وراكسن ورر عصوب قيمه وقصري عددك حل معندا يوم شرحا وقول لعكت بدن wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada maamulka Puntland ay muqdisho TV ka helayso magaalada Garowe ayaa sheegaya in loolankii ugu adkaa uu caawa ka dhacay hoteelada ay degan yihiin xildhibaanada dooran doona subaxnimadan maanta madaxweynaha 5 sano ee soo socota maamuli doona Puntland. Loolanka musharaxiinta ayaa loo adeegsanaya dhaqaale iyo sumcad, waxaana suuqa kala xodxodashada uu gaaray heerkii ugu sareeyay, waxaana halkan idinku soo gudbin doona heerka suuqa musharaxiinta iyo xildhibaanada kala gaareen. musharax maxamuud khaliif jabi ayaa suuqa xildhibaanada la wareegay caawa, wuxuuna beeci ugu sareeyay halkii cod u gaarsiiyey $100,000, taasoo keentay in xildhibaano badan ay u jabaan dhankiisa. waxaa rikoor cusub dhigay oo haddii sumcad iyo musuqmaasuq la dagaalan lagu dooranayo madaxweynaha Puntland, waxaa ku soo bixi doona cali ciise cabdi oo soo xiray albaabada musuqmaasuqa iyo laaluush wax ku doorashada, isagoona xildhibaanadii ugu dambeeyey u sheegay in isagoo 70 sano jir ah muddo 30 sano ah uu la dagaalamayay faqriga iyo musuqmaasuqa, isagoona yiri maanta ma horseedayo mustaqbalkayga iyo aakhiradayda inaan laaluush bixiyo si aan ummad dhan hogaamiye ugu noqdo. marka laga soo tago musharaxa ugu lacagta badan, waxaa isna soo labeeya musharax Faarax Cali Shire oo suuqa soo geliyay lacag dhan 50,000 ilaa iyo 80,000 inta u dhaxaysa musharaxiiba ama halkii cod. musharax Asad Cismaan Diyaano ayaa isna suuqa soo saddexeeya, waxaana xildhibaankiiba uu ku kasbanaya lacag u dhaxaysa 40,000 ilaa iyo $60,000, isagoona adeegsanaya siyaasiyiin magac ku leh Puntland. musharaxa ugu cadcada ee Saciid Dani oo maalmihii lasoo dhaafay suuqa haystay ayaa xildhibaanada kasoo kala dareeray caawa kadib markii uu xildhibaanada u ballanqaaday midkiiba $40,000 kana dalbaday inay u dhaartaan. hase ahaatee waxay doorbideen inay ka qulqulaan. cabdiweli maxamed cali gaas ayaa isna xildhibaano badan ay u jabeen markii uu bilaabay inuu 40 xildhibaan shir la qaatay, miiskana uu u soo saaray $30,000. hase ahaatee xildhibaanada ayaa u arkaa in dhaqaalahaasi ay yihiin hantidii shacabka Puntland, haddaysan u codayna aysan godob lahayn. cabdi faarax juxa oo wasiirkii arrimaha gudaha ka soo noqday dowladii federaalka ayaa saameyn aad u weyn lahayn, maadaama dhaqaale ahaan uu aad isaga liito. dhanka kale, tiro xildhibaanaha oo muran ku jiro tiradooda ayaa lagu soo waramayaa inay guri isku soo aruursadeen, kuwaasi oo sheegay inaysan wax lacaga qaadan doonin, codkoodana ay siin doonaan cidda ay is yiraahdaan way ku habboon tahay waddanka. dhibka jirase waxay tahay tiradooda si rasmi ah looma yaqaano. si rasmi ah looma saadaalin karo shaqsiga hanan doona xilka madaxweynenimo ee Puntland oo musharaxii juhdi kala duwan ay ku bixiyaan, waxaase la ogaan doona insha Allah xaqiiqada 12 duurnimo ee maanta. halkan naga daawanaysan waa Muqdisho TV. bismillaahi